مقدشو 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 سيدا مراها لولكا موجدها بدوينتا موقتا دحلودا سيدا مراها لولكا موجدها بدوينتا موقتا دحلودا بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada barnaamijkeena Muqdisho maanta oo toddobaad oo kaga yimaada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya aalaba barnaamijka waxa idin soo saaray aniga Xadan Saaqmir Dhoore toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa dhismaha laamiga ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale samafarayaasha lagu xiray qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho taas oo aan wax ka weydiin doono bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale dhanka kale aan ku jaleeci doono dhismaha laamiga ee ka soconaya qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo dib ay u soo laabanaysa bilicdeedii ayaa waxa iminka la taaganahay mid kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho isla markaana kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaynu weydiin doonaa ra'yigiisa ku aadan in magaalada Muqdisho dib ay u dhismato iyo in laamiyadii magaalada Muqdisho ee barsimaadka dib ay u soo laabtaan taas oo iminka magaalada ay ka socdaan dhismo baaxad leh adiga ugu horreyn ku bilaabaya magacaaga sidaad u aragtaa dhismaha bilicda leh ka soconaya magaalada Muqdisho Ibrahim Yunis waxa mahadi ah in aan ka hadlo miidiyaha aragtidayda horta runtii aragtidu waxa weeyaan Soomaaliya anagu waqtiyaal badan oo kala duwan baan soo maray waqti dawladnimo soo maray waqti burbur baan soo maray waqti mataqaanaa the rule of one man ama taliya kooxeed baan soo maray marka waxa weeyaan Soomaaliya maanta ilaahay wahabkii buu ka qaaday culayskii buu ka qaaday horumarkan la gaaray iyo mataqaanaa horumarkan wadooyinka sidii mataqaanaa adeega bulshada sida mataqaanaa waxbarashadii wixii oo dhan baa way hirgeleen anigu waxaan aaminsanahay aragtideeduna ay tahay wadanka sida horumarkan imika aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ilaahayow diintaada iyo dalka ilaahow u gargaar ayaan taaganahay ereygaas ay ga soo baxo murti aniga ilaahow diintaada iyo dalka ilaahow u gargaar baanu leenahay dadkan muwaadiniinta waxaan jecelahay inay wixii wanaagsan ay taageeraan baa wanaagsan wixii xunna ay diidaan baa wanaagsan bal waxaanu isla meel dhigi karaa warqax iyo dhib iyo aqal dumis iyo mise dawlad midda kale Soomaalidu waxa ku maamahdaa oo dawlad xun dawlad la'aan dawlad xun baa dhaanta dawlad xunna ma hayna imika horumar baan ku soconnaa waa in mataqaanaa muwaadin kasta uu taageeraa ujeedada horumarka dalka sidaasan kaga baxaya waad mahadsantihiin waa tahay daawadayaal weli waxaynu gudaha kaga jirnaa barnaamijkeena Muqdisho iyo maanta oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanayno bilicda iyo horumarka ka jira magaalada Muqdisho iyo sidoo kale iyadoo dhismaha ka jira magaalada Muqdisho taa uu muuqanaysa iminka magaalada Muqdisho lagu fidinayo laamiyadii taasoo qayb ka noqon doonta bilicda magaalada Muqdisho wax badan ka tari doonta in magaalada Muqdisho ay ku soo laabato sidii barsimaadka ay ahayd sida iminka muuqanaysaba waxa iminka sida indhihiina ay qabanayaan la fidinayo laamiga taasoo iminka ay ka shaqeynayaan shaqaale Soomaaliyeed sidoo kale iyadoo arrintan ay wadaan shirkado ka socda wadanka Turkiga sidoo kale dadka waxaynu weydiin doonaa fikradaha kala duwan ay ka qabaan in magaalada Muqdisho dib ay u soo laabatay bilicdeedii taasoo iminka dad fara badan ay u soo daawasho tageen qaabka iminka loo dhisay laamiga wareen adiga ku bilaabaya magacaaga sidaad u aragtaa dib u soo noolaanshaha magaalada Muqdisho ee marka la eego dhanka bilicda anigoo Maxamed Rashiid May deganna magaalada Muqdisho dhibaatadii wadankan soo martayna goobjoog ka ahaa maadaama wadankeena burburinay haddana wadankeena aan dib aan u dhisanayno waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u wanaagsan inaan wadankeena burburino haddana aan dhisanno aad iyo aad ay u wanaagsan tahay bilicda magaaladana inay soo noqoto aad iyo aadaan
ugu faraxsannahay waanu ku taageeraynaa dawladda turkiga iyo dawladdeena inay maaragtay barnaamijkaas ay u tafxeetaan dadweynahana annaka aan nahay gacan ayaan ku siinaynaa in oo bilicda magaalada dib ay u soo noqoto waa tahay dhanka kale marka aynu eegno magaalada muqdisho waxaa lagu xiray qaar ka mid ah waddooyinkooda samaafaraha kala haga gawaarida dad fara badan dhibaato ay ku qabaan sidii ay u fahmi lahaayeen adi ahaan fikirkaaga ku aadan arrintaas samaafaraha waa technology hore u maray waddankeenna hore u lahaa dadweynaha waa yaqaaniin in seminaaro iyo wacyigelin darawaliinta gaadiidka loo fidiyo unbay u baahan tahay samaafaraha waa shay nadiif ah oo jira oo maaragtay gaadiidka lagu kala hago oo rinjiga gaduudan hadduu soo baxo gaariga waa inuu istaagaa rinjiga buluugga hadduu soo baxana gaariga waa inuu dhaqaaqaa dadweynahana rinjiga gaduudan markuu gaarigu istaago waa inay dadweynaha ayagan ay maraan meesha oo si ay leenjidka waa ka xiran yahay intaas waayo wax dhib oo uu leeyahay alla abuurta ma jiraan samaafaraha bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdi maxamuud axmed waxaa waaye magaca wuxuu u baahan yahay sheegisteedu wax weyn ma aha magac la yeesho soomaalinimo iyo muwaadinnimaa loo baahan yahay dalkan dadku waa deeqaa ilaahay iimaan la'aan iyo ibliisaa dadka taabtay aad baana waxaan ugu mahadcelinaynaa haddaannu nahay shacbiga soomaaliyeed dawladda turkiga ilaahay khayr ha siiyo horumar weyn iyo nololay dalka soomaaliya la soo doonatay waa caalamka fidna mar walba dadka isaga dhacda ilaahayna waxaan leenaha soomaali culayska allah ka qaado soomaali ilaahay culayska ka qaado soomaali ilaahay culayska ka qaado wanaagga iyo caqligana allahna tusiyo in dalka la dhiso dawladda soomaaliyeed waa ugu hambalyaynaynaa gobolka banaadir labada caasimadood hadday isugu magac dareen waa uduqa magaalada waa ugu hambalyaynaynaa waxaan kaloon rabnaa inaan maaragta samaafarayaasha iyo waddooyinka anigu 41 sana waxaan ahay darawal waxay u baahan tahay wuxuu in dadku ay aqoon u leeyihiin hadda nidaam yaroo waxaa jira lagu hiigsa karo sida hadda iskaashatooyinka inay gaadiidka sukuma ay mas-uul ka yihiin siminaaro ay sameeyaan in jenaraal cali khayr allaha siiyo ninka taraafikada madaxda u ah inuu sameeyo dadka siminaaro loo sheego la baro sharcigii istiradaalaha wasaaraddana waa yaallaa iskaashatooyinkana waa yaallaa taraafikana waa yaallaa marka waxay u baahan yihiin in dadka wax la baro oo wax la fahamsiiyo maxaa yeele maanta waxa ama dhibka haaya ama isku haaya ama ii sheeg maaragtay aan soomaalinimadaba isagoo shaqiirahow yimid wuxuu ku qaangaaray fidnadana bini'aadamka laftigiisay fidnada isaga laftigiisay ku noqonaya haddii uu shaqiirahay hadda qaangaar hadduu yahay ou ku owlaad dhalo owlaadaadii fidnadaha ula tagtana wax weyn ma ahan waa dadka in wacyigelin loo sameeyo wanaag loo sameeyo la baro war dalku waydin anfacaa dalka adinkaa iskale dadku waa dadkiinni caalamka dawlad kasta iyo dad kastaahiba waxay leeyihiin yacnii dalkooda safaaradaha calamada waxaa loo suraayo waa aqoonsi waxa dawladdu ay dawladnimo ay ku taha waa shacabka dawladdu waa adeegayaalaashana waxaan ka rajaynaynaa inay maaragta ummaddan waxay ay u baahan yihiin ay wax u qabtaan dhibaatooyinka caalamka ka jirana ay la xarbiyaan maxaa yeele mas-uuliyaddii iyagaa shalaa u dhaarteen ninkii shalaa inta dhaarta maanta khalad sameeyana ilaahay maalinta yowmalbacsi iga waa kula xisaabtamaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga cabdiraxmaan macalin bashiir wallaahi waxaan u arkaa iskuuritiga aad iyo aad u anfaca dadka darawalnimada aad u yiryihiin darawalla aad u fiican magaalada ma joogaan shirarka aad iyo aad u badan marka wax badan ayuu noo qabanayaa sida dadweynaha waddooyinka markay goonayaan xataa waxaa uu soo kordhinaya maxamuud samaafarkaanu waa u badnay baabuurtu kala hagaa ninkaan aqoon iyo ninkii yaqaana waddooyinka kala yaqaano u kala sheegaya ninkii yaqaana waa yaqaanaa ninkaan aqoon waxaan ka codsanayaa inuu guduudkaas iyo cagaarka iyo buluugga oo kala yaqaano ka jiro عمر الشيخ عبد الله يا ليدها سما فراس جانا وقنا عسلنا ورمر لسي جاري دون واي عاصو حسينا باقي النبض وما عرفت حل يا ودك محمد سعد برنامجتي سوى نفسنا وقنا عسلنا ان شاء الله فرح سنة هاي سما فران أو نظاميها ودوين كسيدا قاب الله بر وحنص عسرة برسمات الله وحنرجها إنه برتان ونظام كي قاب الله بر ودوين كنا برتان ورجها يا dadkuna hadda 3 sano ay ku dhex jireen qob iyo qaac marka waxaan rajaa inay nidaamka ay la qabsadaan ay la socdaan qaab waana horumar laakiin waxa muhiim ah gaadiidka darawaliinta wada inay fahamsan yihiin calaamadda joogsada midda soo socda midda leexada in la fahamsiiyo oo darawaliintii hore oo ama teersa garaad ahayd ama sugunta garaad
oo fiisha baraha darawalnimada ka soo qaadan jiray oo laysinkooda sharciyada ku baysgaraysnaa ma aha darawalinta burburka dambe ma fahmayaan calaamadda dhinjarka oo taagan oo istabta ah iyo midda leexada ah iyo midda ka joogta hakadka iyo midka xawaarihiisa looga la xisaabtamayo in la fahamsiiyo oo laga hormariyo darawalintu inay fahmaan Samafara sheegnay madax iyo shacabka waa loo siman yahay sharciga naga wada weyn sharciga na deeqo madaxdu waa sharciga dadka keenay waa iyaga keenay marka madaxdii keentay inay jibisana waxa waaye waa shacabka kaliya sharciga ma qabto sharcigaas waa nagu wada filan yahay waana wada deeqdaa madaxda ugu sarreysa waddanka waxay diyaar u yihiin sharciga inay ilaaliyaan okay waxaa loo baahan yahay idaacadaha iyo telefishinadu inay barnaamijyo siiyaan oo la sii daayo oo dadkan loo sheego in gaduudku yahay ha socon yah in cagaarku yahay waa socon kartaa in jaallahna uu yahay digniin oo markii socod bilowga uu soo bixi doono jaallaha kadibna uu guduudku ka dambayn doono markii guduudku soo baxana waa la istaagi doonaa way dhici doontaa inaan midkaan mid ka sii heer sarreeyo u gudubno bal horta kan aan baroobayno dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay ayagu sharcigii noqdaan cidda ku xadgudbaysa dadweynaha ayaa cid walba ka awood badan waxaad arkaysaan baawur ciidamo seeta iyo istaafya saaran yihiin oon u aaba yeelayn dadweynaha laga rabaa inay ku qayliyaan oo ay joojiyaan oo ay u digaan oo kii ka diida inay hayayaan dadweynaha looga baahan yahay arrinta noocaasa dadweynaha marti ugu nahay inay nidaamka nala soo celiyaan saxaafadda waxaan marti ugu nahay inay macluumaadka ku saabsan Samafaraha ay ka sii daayaan oo ay saacado u huraan sidii dadka loo wacyigelin lahaa wuxuu gelayaa 24 saac ka bacdi xawataaka wuu shaqayn doonaa faa'iidada ay bulshada ku qabaan waxaa badbaadaya dhiiggii iyo dhiidkii askarigii baabuurta kala hagay wuxuu helayaa qofku adduunyada markuu u gudbo Samafara inuu la qabsan karo inta Soomaaliya ka tago oo Rooma tago wanaajiya Muqdisho dantii dadkeena hagaajiya Muqdisho magacii dalkeena wanaajiya Muqdisho dantii dadkeena hagaajiya Muqdisho magacii dalkeena Muqdisho ayuga muuqda Muqdisho magacii dalkeena Muqdisho ayuga muuqda Muqdisho magala madaxdeena Muqdisho magala madaxdeena Muqdisho magala madaxdeena Muqdisho magala madaxdeena magaceena dheereeya mudnaanta sharafteena muujiyay magaceena dheereeya mudnaanta sharafteena muujiyay muruqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeenna isu geeyay muruqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeenna isu geeyay magaaladeena qurxiyay qurxiyay qurxiya sidii muraayadoo kale nadiifiyay nadiifiya magaaladeena qurxiyay qurxiyay qurxiya sidii muraayadoo kale nadiifiyay nadiifiya sida miliicda oo kale Muqdisho maanta adduunka ugu muuqataa Muqdisho sidii miliicda oo kale Muqdisho maanta adduunka uga muuqataa Muqdisho
dhismaha laamiga iyo samafarayaasha iyo markaan arkay wanaagga ka socda iyo dalka dhismihiisa ayaan waxaa iska keena qaaday wadaniyad halkaasaan kula kulmay markaan telefishinka waxaana ka leeyahay laamiyada degdega dumariyo raggo derise inta waada duqa maamuliyo guddidaha cadada markii la isku daray dalku durugiyayo misna duulyayo dayaxiyo daroortanba daba marno madaxweynayaashay waxaa la jiro xidigaha dushaadanba waada degnaa laamiyaasha la dhisay waxaanu arkaa waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan oo ah in wax lala qabtaa markii wax lagu bilaabo waxaa la doonayaa dee meeshii lama fadhiya inaad adiguna wixii ka dhiman aad ku darsataa waana si fiican ayaa loo fahmay samaafarayaashu 5 maalmood camal ay xiran yihiin hadda waa la sii fahmayaa oo dadku waa ciyaalka yarar baa ku sheegay oo kale kan hoose waa soco kan dhexe waa digniin kan korona waa oo dangerkaana amba guluudka amba casaankaana waa taagni marka waa la wada bartay samaafarayaal dhismaha laamigu aad iyo aad ayuu fiican yahay dadka shaqaynaya ee isugu jira Soomaalida iyo ajnabiga aad ayaa shaqada loo wadaa waxaan la yaabanahay shaqo laga rabo ama 8 saac iyo 4 saac camal anaga Soomaalida waxaan ka rawaxnaa 4 saac tagna shaqada 6 saacna waa ka tagnaa 2 saac kaliya la fadhiya balse waxa qiyaas qaadasho aad iyo aad u wanaagsan dadkan soo gal halka saac subaxnimo kana taga 12 ama 6 maqribnimo aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa wixii soo qalqaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijkeennii muqdisho maanta toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay dhismaha laamiga ee ka socda magaalada muqdisho oo ka mid ah bilicda magaalada muqdisho ee ku soo kordhaysa caasimadda waddanka Soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale samaafarayaasha lagu xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho taasoo in fara badan barnaamijkan uu qayb ka noqon doono in dadka ay fahmaan qaabka loo isticmaalo samaafarayaashaasi tan intaan ku kulmayno barnaamijkan toddobaadka xiga cabdisaaq miro dhooro idinle sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu